بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kastoo aad joogtaanba allaha awoodale dhammaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo dhammaan fayrasyada kala duwan ee coronaviruska meel kastoo dunida aan ka joognaba waa maalinimo jimco ah 12 bisha February 2021 cudurka coronaviruska fayrasyadiisa kala duwan ee meelo badan oo adduunka ay ka jiraan iyadoo dhinaca kalena la wada dadaalo xoog leh iyo tallaaladii oo si aad u hirgelaya gaar ahaan doosaska koowaad marka la fiiriyo wadamo badan oo dunida ah xaalka ayaa loo arkaa inuu wanaagsanaan karo marka la fiiriyo wadamada qaar siday usoo yaraanaysa maalin walba dadka cudurka laga arkayo iyo dadka dhimashada taasoo loo arkayo hadday sidan kusii socoto inay u muuqan karaysa ilaa iyo maarij ilaa abriil weji ka duwan wejiga maanta in la arki doono wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub ama Latin America UK markaynu ku bilowno waa wadamada sida aadka looga arkay dhammaan fayrasyada kala duwan iyadoo dadaalo xoog leh ay wada dawladda UK iyo qoliyaha caafimaadku dhinaca kalena talaalkii si aada loo talaalayo dadka meelo badan oo UK kamid ah taasoo fursad siisay in la arkayo maalmihii ugu dambeeyay tirada dadka cudurka laga arkaya inay hoos u sii socotay taasoo markay ugu badneyd gaartay bishii December ilaa iyo 68,000 oo qof maalin qura laakiin iminka la arkayo 12,000 13,000 ilaa 14,000 taasoo hoos u socota maalinba maalinta ka dambaysa UK marka la fiiriyo xogtii ugu dambeysay ee soo baxday waxa ay sheegtay in laga dhawaajiyay in maalinta Isniinta laga bilaabo 15 bisha February hoteelada lagu karantiinayo dadka ka imanaya 33 wadan oo loo arkay in si aad cudurku uga jiro oo wadamadaas ay kamid yihiin xagga South Africa xagga Brazil iyo Portugiiska iyo dalal badan oo ku yaala dhinaca Afrika amaba Latin America dadku markay yimaadaan Isniinta ka hor ayaa la doonayaa inay sii booking gareeyaan amaba ay iska sii diiwaan geliyaan hoteelada la carifay ama la sheegay oo gaaraya 16 hotel oo ay ku yaalaan ilaa iyo 4,700 oo qol taasoo ujeedku uu yahay in dadaalo xoog la sameeyo oo ah qofku inuu isagu uu online-ka markaas uu ka eegayo bookingka iyadoo waliba wararkii ugu dambeeyay ay sheegeen nidaamkaasi la isu diiwaan gelin karayo in maanta la soo saaray laakiin dib loo celiyay si ku meel gaar ah oo khaladaad laga saxayo dibna loo soo shaacin doono taasoo u suurto gelinaysa qof walba oo laga bilaabo Isniinta UK ku soo laabanaya inuu halkaasi iska diiwaan geliyo oo hoteelada uu markaasi noqdo mid isagu ee kharashkana la socda inta ay tahay qofka kaliya 1,750 toban maalmood ayaa loogu talagalay ilaa 11 maalmood oo markaas ay ku jirto dhinaca gaadiidka iyo waliba qofka marka laga eegayo kharashka ku baxaya cudurka inuu qabayo in kale su'aal ayaa imanaysa haddii dadku aanay hal qof kaliya ahayn ee dhowr qofood ay yihiin tirada lacagta iyo qaabku waa sidee qofka koobaad waa 1,750 Isniinta laga bilaabo hadday la socdaan laba qofood oo ka weyn ilaa iyo 12 qofkiiba 650 gini ayay noqonaysaa haddii qof uu la socdo 5 sano ilaa 12 sano inta u dhaxaysa 325 gini taas faahfaahinteeda waxa ay ka heli karayaan mar walba website loogu talagalay dadku inay kala socdaan arrintaas ayaa waxaa la sheegay dadku inay isgooniyeynayaan waxaa jirta dadka marka hoteelada la geeyo in lagu ogaanayo qofka adreeska hoteelka haddii ay dhacdo in laga waayo qofkii uu ka fogaado masaafo kasta la ekaataba qofku waxa uu mudan karaa ilaa iyo 5,000 ilaa iyo 10,000 oo giniga sterlinka oo lagu ganaaxayo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay qoliyaha caafimaadka iyo dawladda UK waxa ay sheegeen dadku marka ay dibadda ka imanayaan gaar ahaan 33 wadan ee la magac dhabay ee aadka xaaladdu aanay u wanaagsaneen xagga cudurka coronaviruska inay form buuxin doonaan formka rakaabka form la yiraahdo kaasoo macnihiisu uu noqonayo markay imanayaan in laga qaadayo oo la eegayo iyadoo lagu buuxinayo halka laga yimid iyo inta la joogay iyo arrimo kale oo ku yaala haddii ay dhacdo dadka iyagu markaasi safarka qaar ka mid ah inay isku dayaan inay been sheegaan oo ay formka ku buuxiyaan waxyaabo qalada 10 sano oo xariga ayaa markiiba qoorta loo gelinayaa taasoo loola jeedo dadku inay feejignaadaan oo ay ogaadaan dhaqdhaqaaqooda in lala socdo oo markaas wax beenahaba yaraatay aanay sheegin warbixin kale oo ka soo baxday UK ayaa waxa ay sheegaysaa in 10kii qof ee u dhintay cudurka coronaviruska UK marka la fiiriyo 6 qofood oo kamid ah ay yihiin dadka lixaadkoodu aanu dhammayn da' kastoo ay ahaadaan arrintaasi ayaa waxaa loo arkay dayacaad markaasi la dayacay dadkii lixaadkoodu aanu dhammayn iyadoo ay ka hadleen qoliyaha dhinaca gargaarka ee iyagu qaabilsan arrimaha la socodka dadkaas iyagu dhibanayaasha ah wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegeen marka laga soo bilaabo bishii January 2020 ilaa bishii November 2020 intii u dhaxaysay dadka dhintay ee iyagu gaaraya 50,888 30,296 kamid ah inay ahaayeen dad lixaadkoodu aanu dhammayn
ninka lagu magacaabo Roger Kramer oo ka mid ah qolyaha madaxda ka ah hay'adaha gargaarka ee caawimaadda siiya dadka lixaadkooda aan u dhammayn ayaa waxa uu yidhi dowladda in looga fadhiyo in dadaallo xoog la sameeyo oo aan dadka la dayicin hadday hore u dhacday in dadka la dayacay xogta aan la siinaynin islamarkaasina aan la gaarin dadka oo aan markaas lala soconin xaaladooda wax gargaarana aan loo fidin meelaha qaar waxa uu shaaca ka qaaday in iminka ay jiri karayso in dowladdu ay qorshe u samaynayso dadkaasi iyo qoysaskooda lagu gargaarayo iyadoo laga faa'iidaysanayo casharadii laga bartay khaladaadkii iyo dayacaadii dadka lixaadkooda aan u dhammayn reer yurkii la dayacay taasoo dad badan oo lixaadkooda aan u dhammayn cudurka coronavirus-ku uu galaaftay markaa daba la fiiriyay UK maalmihii ugu dambeeyey waxaa la arkaya maalintii talaadadii qiyaastii 1,052 ruux in lagu sheegay tirada dhimashada arbacadii waxaa lagu sheegay 1,001 qof iyadoo maalintii shalay oo khamiisana lagu sheegay tirada dhimashada 678 taas oo marka la fiiriyo guud ahaanba ka dhigaysa UK dadka cudurka uga dhintay maalintuu cudurku bilowday ilaa maalinka maanta ah 115,396 UK waxay noqonaysaa juqraafi ahaan reer Yurub dalka ugu dhimasho badan adduunyadana marka la fiiriyo kaalinta shanaad waxaana ka badan oo kaliya wadamada Mareykanka, Brazil, Mexico iyo dalka Hindiya laanta jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan dhinaca caafimaadka WHO warbixin ay soo saartay ayaa waxa ay ku ammaanto oo ay ku sheegtay in tallaalka AstraZeneca shirkadda lagu magacaabo iyo jaamacadda Oxford uu yahay mid wax ka tari kara marka la fiiriyo fayrasyada cusub ee ka soo kordhay xagga South Africa arrintan ayaa waxaa la sheegay oo WHO ay shaaca ka qaaday in AstraZeneca iyo Oxford tallaalkoodu wax ka tari karayo iyadoo la eegay marka la fiiriyo tallaalku awoodda uu leeyahay haddii ay tahay dooska koowaad iyo haddii ay tahay dooska labaad intaba arrinkan ay ka dhawaajiyeen WHO oo markaasi ay ku ammaanayaan waxtarka tallaalka AstraZeneca iyo Oxford ayaa waxaa soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson oo sheegay in tallaabada WHO ay ku sheegtay tallaalku uu yahay mid quman oo ay og yihiin iyaga laftoodu in waxtarka tallaalka AstraZeneca iyo Oxford uu yahay mid aad iyo aad waxtarkiisu u fiican yahay iyadoo dhinaca kalena uu tallaalada kale uga duwan yahay marka la fiiriyo halka lagu kaydinayo oo ah xaraarada caadiga iyo qabowga caadiga in lagu markaas lagu hagaajin karo oo lagu kaydin karo dhinaca kalena haddii la fiiriyo kharashka ku baxaya marka la barbar dhigo tallaalada kale iyo shirkadaha kale uu yahay AstraZeneca iyo Oxford tallaalkoodu tallaalka ugu lacagta yar arrintaas ayaa waxaa kaloo soo dhaweysay haweeneyda lagu magacaabo Dr. Sarah Gilbert oo iyadu madax ka ah barnaamijka tallaalka AstraZeneca iyo Oxford waxaana ay sheegtay in sida ay WHO ka dhawaajisay AstraZeneca iyo Oxford tallaalkoodu uu yahay mid isagu waxtar leh oo laga maarmaan ay tahay in si aad looga faa'iideysto ugu dambeystii marka la fiiriyo dalka Peru oo kamid ah wadamada Latin America ayaa waxa uu bilaabay inuu dadkiisa talaalo iyadoo dalkaasi uu kamid yahay wadamada saameynta xoog leh oo ku yeeshay cudurka coronavirus-ka waddanka Peru ayaa la bilaabay toddobaadkii hore iyadoo lagu bilaabay nin isagoo madax ka ah qayb xaaladda degdega ee isbitaal weyn oo ku yaala magaalada Lima arrintaas ayaa waxaa loo arkaa inay tahay tallaabo fiican oo dadka reer Peru lagu talaalayo si cudurka looga hortago waa coronavirus-ka ilaa iyo 300,000 oo doos oo ah tallaalka lagu farsameeyay dalka China ee shirkadda dawladdu leedahay lagu magacaabo Sinopharm ayaa la geeyay magaalada Lima ee waddanka Peru oo tallaalka lagu bilaabay iyadoo qaybo kalena ay ka sugayaan shirkadaas iyo waliba shirkado kale marka la fiiriyo waddanka isaga lagu magacaabo Peru oo ku yaala dalalka Latin America ayaa dadka cudurku uga dhacay waxa ay gaarayaan ilaa iyo 1,300,000 ruux dad ka badan ilaa iyo 47,000 ruuxna reer Peru cudurku uu ka dilay waa cudurka coronavirus-ka marka daba la fiiriyo guud ahaanba adduunyada xaaladdu aad bay markaas u cakireed laakiin tan iyo intii tallaalada la bilaabay xaalku waa uu wanaagsanaa taasoo loo arkayo tallaalada la bilaabay ee la badinayo dooska koowaad inay wax tarayaan dooska labaad marka lagu darana inay wax sii tari doonaan arrimahaasi oo dhan ayaa waxay yihiin kuwo yididiilo wacan gaarsiinaya marka la fiiriyo iyo rajo quman wadamada dunida kuwa jeebkooda uu buran yahay kuwa jeebka dhexe iyo kuwa jeebkooda uu leeta intaba guud ahaan waxaa la eegayaa sida tallaaladu ay u gaaraan meelo badan oo dunida ka mid ah iyo weliba cudurka coronavirus-ku saameynta uu ku yeeshay bulshada iyadoo ilaa iyo haatan inta la arkay xaalku aanu wanaagsanayn laakiin bilaha soo socda rajo fiican la qabo waa fariinta aad toddobaadkiiba 2 maalmood aad ka heshaan halkan oo ah maalinta Jimcaha oo maanta oo kala ah
iyo maalin walba oo talaado ah haddii allah awoodda lehi uu ogolaado marka haddaba aynu fiirino fariinta waxaa fududeeya sharikadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliyana guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa sharikadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo weliba iyadoo halkaasi laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii haddii lagu keenayo intaba ganacsade Axmad Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528777 dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano baryada eebba aan badina nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah